taariikhdu ay tahay 12 bishii shanaad 2019 maxkamadda darajada koowaad gobolka Mugaal Garowe waxay u fariisatay xukun ka soo saartay dacwadii ciqaabta ahayd oo loo haystay 10 nin oo ay ka mid yihiin Abdifataax Cabdiraxmaan Warsame, Abdishakuur Maxamed Degel, Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame ilaa lambarka 10. maxkamaddu markay dhageysatay eedda xeer ilaalinta oo ah nimankaasu inay ku eedeeyeen caasho marxuumad caasho Ilyaas Aadan, nimankaasu inay afduubeen, kufsadeen, si wadareed ah dileen, sumcadilid Puntland iyo shacabkeeda ku sameeyeen, amnigeeda khalkhal geliyeen. markay xeeraalinta kusoo gudbisay maxkamaddu markay dhageysatay eedeysanayaasha oo ku jawaabay inaysan gelin, maxkamaddu markay dhageysatay qareennada, maxkamaddu markay dhageysatay dhegeysiga koowaad iyo dhegeysiga labaad iyo dhegeysigii saddexaad oo hadda gabagabadiina uu ku soo gabagabeeyey xeer ilaaliyaha guud ku-xigeenkiisa Maxamed Xareed kaargid dacwada koowaad uu kaga dhigay 3 eedeysane oo kala ah Abdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Abdishakuur Maxamed Degel iyo Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame. 3daa uu yiri uu keenay dhacaankii laga qaaday iyo cidiyihii gabadha dhacaankeedii iyo cidiyaheedii iyo iyaga dhacaamadoodii oo la soo baaray Nairobi lagu soo baaray, cadaymihii maxkamadda uu hor keenay oo muujinaya inay isla falgaleen 7 kale laakiin uusan keenin, eediisana uu ku ururiyey maadaana wax cadayma u hayn in la dhaariyo. maxkamadduna ay dhaarisay. maxkamaddu waxay amraysaa lambarka 4 ilaa lambarka 10 xorriyadooda in loo sii daayo sida ugu dhaqsaha badan. 3 kale oo uu ku soo gabagabeeyey maadaa ay caddayntaasu muujinayso inay nimankaasu gabadha nimankii kufsaday, dilay, qafaashay, dhibtaa u geystay ay yihiin. markaanu qoraallada akhrinayna ay saa muujinayso inay yihiin 3daasu nimanka marna aan laga saari karin ee sameeyey dhibtaa caasho ku sameeyey inay yihiin maadaa cidiyihii iyo taabashadii waxaa la yidhaahdo dhacaankii laga helay. xukunkii maxkamaddu waxay ku xukuntay 3daas eedeysane oo ah Abdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Abdishakuur Maxamed Degel iyo Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame dil oogasha oo dawladdu ay ku samaynayso dilkaas ay u kala saaran tahay iyo inay furiso bilaa tawfiiq.